waxa la yiraahdaa badwayn waa haro geel ayaa ka cabaya geel wuxuu ka mid yahay hantida ugu qaalisan ee Soomaalidu leedahay geelu wuxuu ka mid yahay sidoo kale xoolaha quraadka loogu dagaalamay Soomaalidu ay kala dhacdo farax laanjeer baa inta la yiri geel baa dhacday ayaa wuxuu tilmaamayay inaanay Soomaalida dhexdeeda geel in la dhacaa wax dhibiba ku jirin oo wakiilaha ifka lama xujeyn karo ninkii xiito weerara waa shayga lagu maalo geela magacyo badan buu leeyahay harugaal gaawe murre gorof waa kii gamuuta markuu gabayay lahaa inta fudhifudlaa soo godladay gaar u fuuqsaday dabadeedna gorof xoor la iyo gaashna raacsaday maanta oo bishu tahay 12 bishii 11aad maalin jimcaha xilli duhura waxaan halkan maanta dalxiis ku nimi magaalada la yiraahdo badwayn waa tuulo yar oo ku taalo haro la moodo bad oo aan gu'iyo jiilaal midna gurin halkan waxaan u nimi dalxiis sidoo kale waxaanu ka soo qayb galnay bandhiga buugaagta celiska ee magaalada Caynabo halkaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo buugaagta celiska bandhiga buugaagta celiska ee magaalada Caynabo runtii farxad bay noo tahay maanta rag badan baa jooga rag khiyaaraba halkan isugu yimi oo aad u fara badan bas dhan baanu nahay runtii aad baan ugu faraxsanahay maanu deegaankan dhulkan quruxda badan ee Ilaahay nasiiyay subxaanahu wa ta'ala soo kale inay aqoonta iyo bandhiga buugaagta halkan iyo deegaanka ma soo gaadhaan waa horumar weyn sidoo kale maktabada laga furo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay tahay maalin jimcaha 12 bishii 11aad 2021 waxaan soo booqanay oo dalxiis booqasho iyo waxa weeyaan ka qaybgal barnaamij uga soo baxnay gobolka saraar hadda waxaan joognaa magaalada lagu magacaabo badwayn magaalada waxa ku taala waxa weeyaan haro baa ku taala dadkeenuna ay badwayn u bixiyeen oo badwayn u yaqaanaan haradan sida noo sheegay ama hore aanu aragnay waxa weeyaan waa haro ay ku nool yihiin xawayaanada badaha ku nool oo kale sida kalluunkii iyo bahal yar yar ay kala dhan marka waxa weeyaan hare buuxisay shuruudii xarannimada weeyaan badna ma aho badihii caadiga kuma xidhna marka waxa weeyaan waxaynu oran karnaa waxaan maanta joognaa harada kaliya ee ay leedahay Somaliland waxay ku taallaa gobolka saraar degmada Caynaba marka la soo dhaafo degmada Og xoogaa ayay u jirtaa halkaasaan joognaa waxaanu nimi iyadoo waxa weeyaan xoolo fara badan ay ka cabayaan oo geel iyo ari bay isugu jira nasiib xumo waxaan noo sheegay in xilliyada ay xooluhu ka cabayaan geelka hore uu kalluunku hoos u muquuro walidaalika aanan heleelin inaanu wax weeyaan la soo baxno kalluunkii marka waxa weeye booqasho wanaagsan waxa weeyaan ragga socodka uu door haduu isku daayimo